waxa ay ahayd xaflad si heersaraa loo soo agaasimay oo ay ku qalin bedelanayeen arday ku dhow 500 oo arday oo wax ka bartay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Banaadirson xarumihiisa kala duwan ee magaalada Muqdisho. xafladda waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo gobolka Banaadir, macallimiin, arday, waalidiin, bahda fanka iyo marti sharaf kale. iskuulka Banaadirson umad yahay boqolkiiba boqol wiilis weeyaan u baxay bulshada Soomaaliyeed da'yartii basaastaye dariiqyada buuxi jiray waxay u fureen bukale. Ustaad Cabdullaahi Maxamed Nuur Malaas madaxa waxbarashada dugsiyada Banaadirson ayaa faahfaahin ka bixiyay ardayda sanadkan qalin jabinaysa. dufcadii 15aad runtii qaangaarkii iskuulka wixii hadda ka dambeeya waxaan leenahay iskuulku uu qaangaaray waxaa garbihiisa taagan dadka uu soo saaray oo meel kasta iyo shaqo kasta u baahan yahay qabanaya ka mid tahay runtii mas'uuliyiinta maanta meeshaan ka hadashay iyo kuwa hadda fursaddu ay u saamixi weysay iyo waqtiga iyo kuwa maanta aan ku sugnayn meesha hadda xafladdu ay ka dhacayso meelo ka fog jira runtii qalbiga iyo niyada aad ugu haya ardayda maanta qalin bedelanaysa runtii waxay ku biirayaan naadiga ardayda qalinjibiyaasha dugsiga meesha ay uga taagan yihiin sida ay meel kasta ay u joogaan ay uga hambalyeynayaan ayaan uga mahad celinaynaa. madaxdii ka socotay maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale waalidiinta ardayda ayaa hambalyo kadib waxay la dardaarameen ardaydii qalin jabinaysa sanadkan. waxaan leenahay ardada meeshan waa bilowgii koowaad farxadda inaad hore u sii wadaan oo jaamacad heerka koowaad heerka labaad ilaa PhD aad ka gaartaan dadaalka inaad sii wadaan. waxaan rabaa inaan aniga ku hadlayaa magaca waalidiinta uga mahad celiyo Banaadirson shaqada ay qabteen oo qiimaha badan oo aan la koobi karin oo runtii xidig ifaaya oo iftiinkiisa magaaladan Muqdisho gees to gees laga arkaayo caruurteenna ka baxday ama hadda kuwa dhiganaya runtii annaga waa ku qanacsannahay qaabka ay wax wadaan waxbarashada iyo tacliinta iyo barbaarinta oo nooc kasta leh iyo asluubta iyo aadaabta waxbarasho aan aadaab lahayn macno badan ma samaynayso. maamulaha dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee Banaadirson Cabdiraxmaan Axmed Sheekh Cusmaan oo isna madasha ka hadlay ayaa ardayda kula dardaarmay in waxbarashadooda ay sii wataan. dardaaran yar haddaan la dardaarmo ardada maanta qalin toosinaysa ama takharujaysa dardaarankii koobaad waxaan u dardaarmayaa in Allah subxaanahu wa ta'ala ay ka baqaan meel kasta ay joogaan iyo waqti kasta ay ku sugan yihiinba wixii la soo baray waalidka ka soo bilow macallimiinta iyo maamulkii agaasimaya ay soo bareen inay ku dhaqmaan ummadoodana ay u adeegaan inta awoodoodu tahay. ugu dambeyntii waxaa madasha shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Banaadirson. Cabbaas Xuseen Muuse, Mustaqbal Media, Muqdisho.